awar saxaafadeed ay soo saartay dalladda isbahaysiga mucaaridka ee BSN ayaa lagu sheegay sida tan laga bilaabo maalintii salaasadii 25 Febraayo 2025 boqolaal qoys oo reer Jabuuti ah oo ku nool xaafadda Buldhuq ee ku taala duleedka magaalada madaxda Jabuuti ayaa mar kale la kulantay xadgudubyo iyo tacadiyo loo geystay oo ka dhan ah xuquuqdooda asaasiga ah atacadiyadaasi oo si kas ah u fulinayso xukuumadda talada haysa reer Buldhuq ayaa si waxshinimo iyo naxariis darro ah looga burburiyay guryahoodii iyo hantidoodii yarayday isku kagabteen caruurtoodiina waxaa sas iyo argagax ku abuuray guuxa iyo gariirta cagafta la dhexgeliyay waalidiintu waxay la ildaran yihiin murugo iyo cabsi intaa kadib waxaa lagu amray inay si degdeg ah uga guuraan goobihii ay deganaayeen haddayna sidaasi yeelinna waxaa loogu hanjabay xadhig taasi beddelkeeda ma jirto wax xal ah iyo guryo cusub oo ay ku wareegayaan oo loogu talagalay burburintaasi waxaa loo adeegsaday qalab dawladeed oo ay wehelinayeen ciidamada boolisku waxaana qoysaska amar ku siiyay inay halkaasi iskaga guuraan saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska sababta rasmiga ah ee loo rarayo ayaa loogu sheegay in dhulka ay degan yihiin la siiyay shakhsiyaad gaar ah oo reer Jabuuti ah ama hay'ado haddaba waxaa isweydiinta mudan qoysaskani miyayna reer Jabuuti ahayn miyayna xaq u lahayn inay helaan hoy iyo guryo miyayna mas'uuliyadda dawladdu ahayn in ay xal waara u hesho dhibaatooyinka guryo la'aanta ee taagan annaga oo ah dalladda isbahaysiga mucaaridka ee BSN waxaanu si adag u cambaaraynaa ficilada arxan darrada ah ee aan la aqbali karin dawladdu waa inay joojiso falakan gurracan ee ay ku kacayso xukuumaddu waa inay qaado tallaabooyin u qalma dawladnimada waxaanu si cad u dalbanaynaa qodobadan soo socda kow waa in qoysaskaasi la siiyo gargaar bini'aadantinimo oo degdeg ah laba waa in dhammaan qoysaska la guryo tiray loo helo hoy iyo rog ay degaan oo rasmi ah oo muran la'aan ah saddex xukuumaddu waa inay dejiso qorshe siyaasadeed dhab ah oo ku saabsan guryeynta si dhammaan muwaadiniinta reer Jabuuti u helaan hoy iyo guryo hanti ah oo u qalma waxaanu dalbanayno maaha mucjiso waa wax suuragal ah awoodna waan u leenahay waxaan rabnaa isbeddel dhab ah oo waara